Xisbullah ayaa markii ugu horeysay gantaal nooca ridada dheer waxa ay ku garaacday magaalada Tel Aviv. Guud ahaan magaalada Tel Aviv waxaa laga maqlay dhawaqa seeriga digniinta, kaas oo loogu muujinayo dadweynaha in ay jirto khatar. Waxaana guud ahaan dadka loo hagayay ama lagu hagayayba in ay abbaaraan goobo loogu talagalay in ay uga gabadaan bambaanooyinka iyo gantaalaha ka imanaya Xisbullah. Xisbullah waxa ay sheegtay in gantaalkan ridada dheer ay la beegsadeen xarun ay leeyihiin sirdoonka Israel ee Mossad oo ku taala agagaarka magaalada Tel Aviv. Israel ayaa howlgelisay dhinaceedana nidaamka gantaalaha balastiga ee ka hortagaya guud ahaan gantaalaha, waxaana la faray dadweynaha in ay si degdeg ah u gaaraan goobaha loogu talagalay in ay uga dhuntaan gantaalahaas. Bayaan ka soo baxay Xisbullah ayaa lagu yiri annaga oo taageerayna dadkeena Falastiiniyiinta ee ku sugan marinka Gaza oo aanu ku garab taaganahay iska caabintooda geesinimada leh iyo difaaca Lubnaan iyo dadkeeda. Isbahaysiga Islaamku waxa uu Arbacadii riday gantaal balastig ah oo lagu magacaabo Qatir 1 isaga oo ku beegnaa 6:15 subaxnimo xarunta Mossad ee sirdoonka ee ku taala agagaarka Tel Aviv. Kooxda iska caabinta ee Xisbullah ayaa sheegtay in xarunta Mossad ay ku lug leedahay dilkii hogaamiyayaasha iyo qarxinta aaladaha isgaarsiinta ama fooneeyayaasha ee dalkaasi Lubnaan. Xisbullah iyo Israel waxa ay isweydaarsanayeen weeraro sababay dhimasho iyo dhaawac wixii ka dambeeyay duulaankii Israel ee Gaza. Mar sii horeysay Xisbullah waxa ay sheegtay in ay gantaalada Fadi 1 la beegsatay saldhigga ciidamada Israel ee Ilaniya ee dhulalka waqooyiga ee laga haysto, iyadoo sheegtay in saldhiggaasi uu xiriir la leeyahay qaybta 146 ee kaydka ee ciidamada Israel ee dhinaca waqooyiga. Sidoo kale howlgal kale ayaa ururka Xisbullah waxa uu ku sheegay in ay weerar ku qaadeen fariisin ciidan oo ku dhow deegaanka Sacd, sidoo kalena ay 90 gantaal ku dhufteen saldhigga la yiraahdo Dado oo ah xarunta taliska ee dhinaca waqooyiga. Kooxda iska caabinta ee ururka ayaa sidoo kale sheegtay in ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inay ku duqeeyaan xarumaha ciidamada gaarka ah ee badda ee Israel ee ku yaala saldhigga Alit ee u dhow Haifa, waxaana duqeymaha ay waxyeello u geysteen goobaha askarta Israa'iiliyiinta. Xisbullah ayaa wacad ku martay in ay sii wadi doonto weeraradeeda ilaa inta Israel ay wado howlgalkeeda dhinaca militari ee Gaza oo lagu dilay in ka badan 41,467 qof oo u badan haween iyo carruur. Israel ayaa 2 dagaal oo hore oo iska caabin ah oo aad u xoogganaa waxa ay la gashay ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan sanadihii 2000 iyo 2006. Goordhoweydna wasiirka caafimaadka ee Lubnaan waxa uu sheegay in weeraradii dhinaca cirka ee koonfurta Lubnaan ay Israa'iiliyiintu ka geysteen maanta oo keliya ay ku dhinteen 51 qof oo ah dad rayid ah, isla markaana boqolaal kale ay ku dhaawacmeen. Maalmihii la soo dhaafay oo keliya boqolaal qof ayaa Israel ay ku dishay gudaha Lubnaan, waxaana sidoo kale ku barakacay dalka Lubnaan gudihiisa 10,000 oo qof oo ilaa iyo hadda aan ogeyn halka ay doonayaan in ay saldhigtaan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Fadlan warbixinada noocan oo kale la wadaag asxaabtaada iyo ehelkaaga. mahadsanid.